السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لما نقيات يوتيوب وين سلامي عشان كنا حكوا سابسين هاي ويندويت كاني أنا لازم دقني سيدان أقول شو بلهن DVD مرة قوات وحميم أرضك إنه أقعدوا أي سوق سودك سدي إنه شقينا وإنه جاكريا مرة سأقول بالله ولاد أيان قلنا Welcome to my YouTube channel. مرة قوات وحلقة بهي إنك بلاوديد أي سوقك وإن أد جاكريسا sababtoo ay soo markaa jeeganaysid labadan barnaamij ayaan isticmaalanaa kan koowaad markaan raadkii ku dhahdo open waa dhahaysaa ama dragging waa ku samaysaa wuxuu ku leeyahay bootable image wuxuuna uu shaqeynaa haddii aan ISO-ga barnaamijka caadi aan u furo wuxuu soo qoraa ujeedaa sababtoo waa faaruq haddii uu windowgaaga inta kusoo baxo wuxuu ku leeyahay non bootable image hadda kusoo qoro DVD-gaas ama USB-ga ku shubtay ma shaqeynayo haddii aan barnaamijka raadkii ku dhahno open haddaad dhahdid cilad ayaa kaaga imaanayso kadib waxaad leedahay run as administrator kadib markaa ku furtid waxaad leedahay right click kadibna successful lagu dhaha okay ayaa leedahay kadibna waxaad leedahay run live CD kadibna ISO-gaaga double click ayaa siinaysaa kadib wuxuu ku leeyahay virtual machine ma sameeya may ayaa leedahay kadibna windowgii wuxuu ku soo qorayaa inkay taabo ku dhahay keyboardkaaga inkay ayaa taaban kartaa xarufta kamid keyboardka saas darteed windowgii uu ku soo kacay waa diyaar marka iska soo xirno DVD-gana sidee ugu duubnaa marka barnaamijkan ayaa isticmaalanaa ImageBen oo jeeda barnaamijkan nooca waaye website-kooda waa kan download ayaad dhahaysaa si toos ayaa ula soo degaysaa downloadka kadibna oo jeeda qaybtan ugu hoose ayaa tegaysaa waa soo dhalingarsanaysaa kan aad ku jeegarisid USB-ga barnaamijkan ardayga bilowga aad ayuu anfacayaa inuu USB-giisa ama ISO-ga markasta isku jeegarayo waa barnaamij free asigana kadib double click ayaan siinanaa ImageBen-ka waa furaynaa sidan ayuu kugu soo baxayaa kadib kugu soo baxo right image ayaa leedahay fail to disk kadibna ISO-gaaga ayaa inta furaysaa soo qaadanay meesha ay ku yaalla ayaa tegaysaa desktop-ka ayaan tagayaa kadibna waa ujeedaa ISO-gaaga double click ayaa siinaysaa kadib waxaad ogaanaysaa computer markaad tegtid DVD-gaaga size-ku yaa waa inaad ogaataa ujeeda HY waa 4.38 waaye waa 4.38 GB windowgaagana waa inaad ogaataa inta size uu yahay sababtoo ah ujeeda waa 32 bit waa kan laakiin windowga waxaa jiraan iskugu jiraan noocyo badan haddana size-kiisa ilaa 5 GB qaar dhowr iyo 10 GB windowga la isku daray waa inaad iska hubisaa kadib wuxuu ku leeyahay isla markii si automatic ayuu soo qaadanaa kadib waxaa leedahay ujeeda ready uu yahay haddii uu inta ready kusoo qorin kusoo qor diskigan waxba ka qora canjalada ku jirto DVD-ga ama CD-ga waxaad ogaanaysaa barnaamijka la hayo hore ugu dubnay waa inaa mid cusub oo faaruq aad gelisaa saas darteed waxaa leedahay read ayaa leedahay kadib wuxuu bilaabayaa inuu windowgii duubo marka waxaa ujeedaa wax yar ayaa hadda u dhiman haddii aan meeshaas jeegga saaro waxaa dhahay markuu barnaamijka dhameeyo oo duubidda dhameeyo has xiro haddii aan inta ku jeegga saartidna markii uu DVD-ga duubidda dhameeyo hasdamiyo haddii aan inta jeegga saartidna image ISO ayuu kaa tirayaa marka close-ka waa inuu ku saaran yahay si oo programka markuu dhameeyo automatic uu isxiro marka hadda wax yar ayaa u dhiman sababta close-kaas hadda ku saarnay si automatic barnaamijka isma xiraayo laakiin hadda duu jeegga ku saaran yahay wuu isxiraa kadib marka automatic isku xiro canjalada ayaa dib u soo gelinaysaa sida uu shaqeeyo kadibna wax yar ayaad sugaysaa kadib hadda waa diyaar computerka this PC ku dhufo kadibna DVD-gaagii waa diyaar si aad u jeegaraysid ISO-gaaga furo kadibna waxaad leedahay fail open CD DVD ayaad furaysaa kadibna wuxuu soo qaadanaa DVD-gaagii open ayaad leedahay kadibna import ayaad leedahay inta ayaan fiirinaa meesha nanta ayaan ogaanaynaa wuxuu ka dhigi doon haddii uu nanta sidee noqdo faylasha marka inta soo dhigo waa DVD-gaas ma shaqeynayo laakiin markuu nanta ka bixiyo ayaan ogaanaynaa bootable iyo xarufo kale soo qoro ama bootable image soo qoro marka waxaa ujeedaa inuu kusoo qoray disk has been analyzing waa ujeedaa windowgaagii waa diyaar kadibna wuxuu kusoo qoray bootable iyo windowga DVD-ga iyo xarifiisa saas darteed windowgaagii waa diyaar
marka insha Allah bidna kariim waxaan maleynayaa inaad ka faa'iideysan doontaan casharadan waxaa loogu talagalay ardayda iyo bilowga inay ka faa'iideystaan sidaas darteed insha Allah bidna kariim wixii su'aalo comment ku soo qor wixii fahmaysa Windows ku saabsan insha Allah bidna kariim iyo sida log ugu fur leeyahay ayaan mar dhow la soo wadaa Windows 7 Windows 8 Windows XP sida passwordkaada hilmaamtay insha Allah biidna laakiin inaad ka faa'iideysan doontaan ayaan rajaynayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh wajazakum allahu khayran.